الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وزيرka arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha Turkisom oo halkan jooga taliyaasha ciidamada EUSOM ee Uganda iyo taliyaasha xoogga dalka gudoomiyaha degmada dhammaantiin waa mahadsantihiin salaamullaahi calaykum sharaf weyn bay noo tahay runtii maantay sida horey loo tilmaamay inaan joogno Zabid iyo Caanoole oo shaqooyin badan ay ka dhaceen waxaa ugu horeysay 6 bilood 7 bilood ka hor in la xoreeyay oo dhiig badan halkan ku baxay waxaa ku xigay in khawaarijtii burburkii ay geysteen oo buundadii 70 casho ka hor aan halkan laga daahfuray wasiirka arrimaha gudaha iyo wafdi isla socda maantayna guryihii qaybo ka mid ah dadkii barakacay oo khawaarijtu guryaha ka dudumisay guryahoodii oo dib loo dhisay oo iska kaashadeen walaalaheen Turkiga iyo ciidanka xoogga dalka iyo dawladda Soomaaliya guud ahaanba dadkii maantay in guryo cusub oo standard fiicana oo ka wanaagsan xitaa kuwii hore u deganayeen in bilowgoodii maantay la wareejiyay oo dadkii la dejiyay dawladda Soomaaliyana ma ahan waxay u socotaa deegaan kaliya la qabsado deegaanka waa in nolol inay ka hirgasho way xabaddu kaliya la iskama wato wax lagu ma dilaaye nolol ayaa la socota noloshii la socotay dib u xoreynta ayay tanina qayb ka tahay marka ciidanka waa u mahadcelineynaa simig hoggaanka isku xirka ciidanka iyo bulshada way mahadsan yihiin iyaga saldhig u ahaa shaqadan deeqdii hadda la qaybiyay garoonka masaajidka la dayactiray xataa masaajidka dudumiyay nimankii khawaarijta ahaa masaajidii ka ammaan heli weysay shirkadihii isgaarsiintay ayay jajabiyeen يعني waxay cafiyeen ma jirto waa niman nolosha u daran diintana u daran waa marka runtii sharaf weyn bay tahay ciidankeenuna ammaan buu ku mudan yahay ciidamada Uganda walaalaheena oo halkan dhiigooda ku baxay iyagana way ku mahadsan yihiin waxaan rabnaa bilow ahaa waxaan ku baaqaynaa maamulka koonfur galbeed iyo wasaaradda arrimaha gudaha iskaashanaya in dadkan la dejiyo dib u dejin dhammaantood barnaamijka xasilintuna waqti uu shaqayn lahaa waa joogaa marka soo socota wasaaradda amniga iyo wasaaradda cadaaladda wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka iyo biyaha intaas inay aan keenno way ka howlgalaan maadaama nabadgelyadii ay ful tahay oo hadda wax khatari aysan jirin marka iyagana insha Allah waxaan gobol baan u noqon doonaa wasiirkan uu hogaamin doona in aan la fariisano dadkan ceelkii biyihii ma leh wabigiina hadda ay iska dhaansan jireen waa kanaayo hadda muddo 3 bilood aan u maleynayaa waaba biyo ma lahanba marka isagana ceelkii biyaha marka in la helaa waa noloshu biyahaasi ka bilaabatay waa laga marmaa way insha Allah waxaan qaadaynaa hadda inaan ceelkii inuu hirgalo oo ceel ay hesho Zabid iyo Caanoole inay ceel helaan insha Allah waa shaqada koowaad oo aan qaadi doono barnaamijka xasilintuna deegaankan kaliya ma ahan bariire iyo Awdheegle iyo deegaamada kale oo la xoreeyay ilaa xeebta jira in wixii baahida oo la qaban karo inaan qabanno kulaha wasiiradana waa horgeyn doonaa warbixinta hawshan qayb weyn bayna dawladdu ku ciyaari doontaa hadii la yiraahdo mar labaad waxaan rabaa inaan walaalaheen Turkiga oo shaqadan hadda qabsoontay qaybteeda koowaad lahaayeen buundada dayactirkeeda qaybta ugu weyn lahaa inaan u mahadcelino waa walaalo jira barnaamijka xasilinta oo awal deegaamadan goboladan kale ka hirgalay waxaan rajaynaynaa inuu shaqadiisii shabeellada hoose inay bilaaban doonto isagoo journalistkii rasmiga ah soo mari doona marka aad iyo aad baad u mahadsantiin wiilasha dhalinyarada faraxsanaa ilmihii yareeraa faraxsanaa wax la heli kara maaha farxadaas
dad badan bayna ka maqan tahay farxaddaas oo maanta khawaarijta gacantooda ku jira deegaan walboo la tagana inta hadda halkan laga sameeyey in ka badan ayaa laga samaynayaa marka waxaan leenahay deegaamada shabeellada hoose weli khawaarijtu ku sugan yihiin idinkuna diyaar garooba qaybtiinana ka ciyaara halganka sida reer Zabiid iyo Caanole ay qayb ugu ciyaareen iyo deegaamada kaleba aad iyo aad baa u mahadsantahay